بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kasta aad joogtaan ba allaha awoodda leh dhammaanteen waxaynu ka wada baryaynaa inuu naga wada badbaadiyo cudurkan safmareenka ee coronaviruska iyo cudurro kaleba waa maalinimo sabtiya 8 iyo 20 bisha November 2020 cudurka coronavirusku weli waa jira waa siyaadaya meelo badan oo adduunyada ka mid ah iyadoo dhinaca kalena la wado dadaalo xoog leh iyo arrimo badan oo la doonayo in lagu xakameeyo cudurkan adduunka oo dhan markaasi dhibaateeyey waxaynu ku bilaabaynaa dalka Kenya oo kamid ah dalalka ku yaala geeska Afrika ayaa gegida diyuuradaha caalamiga ee magaalada Nairobi waxaa lagu qabtay 21 ruux oo u dhoofayay wadanka istaga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai kuwaasi oo watay shahaadooyin la been abuuray oo sheegayay inaanay qabin cudurka coronaviruska arrintaas ayaa waxaa ka hortagay maamulayaasha garoonka diyuuradaha ee magaalada Nairobi kadibna dadkaasi shalay galinkii dambe ayaa la maxkamadeynayay iyadoo loo arko inay khaladyo iyo dambiye ay galeen arrintan iyada ayaa waxa ay tahay mid lagu baraarugay kadib markii la arkay toddobaadkii la soo dhaafay ilaa iyo 100 ka mid ah dadka iyaguna ku socday mar kale wadanka istaga Imaaraadka Carabta oo dhammaantoodba haystay shahaadooyinkaasi beenta oo ah in cudurka laga eegay dhammaantoodna aanay qabin oo ay yihiin negative waxa loo yaqaano laakiin 100kaas qof markii mar dambe lagu celiyay in la eego cudurka inay qabaan iyo in kale ayaa kala bar waa 50 ka mid ah waxa laga arkay cudurka coronaviruska dalka istaga Imaaraadka Carabta ayaa 13 wadan waxa uu ku soo rogay fiiso ama badal ku gal inaan la siinin iyadoo loo aaneynayo arrimo badan Kenya ay ka mid tahay Soomaaliyana ay ka mid tahay Liibiya Tunisia iyo dalka Algeria ay ka mid yihiin arrimahan iyaga ah ee dadka qaadanaya shahaadooyinka beenta ah ee sheegaya inaanay cudurka qabin oo ay dhici karto iyagoo aan cudurka qabin inay haddana iibsadaan ay lacag ka bixiyaan waa arrin ka soo horjeeda nidaamka iyo shuruucda u degsan wadamada dunida marka laga hadlayo arrinta ku saabsan marka la dhoofayo kahor 72 saacadood in la cadeeyo in qofku cudurka uu qabayo in kale oo haddii aanu qabin uu dhoofi karayo haddii uu qabana ay tahay in markaa la gooniyeeyo laakiin meelo badan oo kamid ah dalalka dunida garoomada diyuuradaha ayaa lagu qabtay dad caynkaasiya oo qaarkoodna ay dhici karto inay dhaafeen ama ay ka gudbeen dhowr toddobaad ka hor ayay ahayd garoonka lagu magacaabo Charles de Gaulle International Airport ee magaalada Paris in lagu qabtay diyuurad ku sii socotay wadanka Ethiopia shakhsi kamid ah oo sitay shahaado been abuura taas oo markii dambe la ogaaday dad jooga garoonka oo iyagu ku shaqeystay arrimahaasi oo la qabtay 4 nin iyo ruux haweena kadibna la maxkamadeynayay iyadoo loo arkay inay yihiin kuwa iyagu lid ku ah nidaamka iyo barnaamijyada loo dejiyay cudurka coronaviruska ka hortagiisa iyo iska ilaalintiisa intaba dad Soomaaliyeed ayaa dhici karta inay ku fakaraan arrimaha noocaasi oo ay tahay inay iska ilaaliyaan oo ay markaas ku dadaalaan inay nidaamka maraan oo cudurka laga eego oo hadday qabaan ay isgooniyayaan haddii kale aanay qabin ay helayaan shahaado sax ah intii la eryin lahaa aakhritaankii kadibna xabsi la dhigi lahaa wadanka Kenya ayaa maalmihii ugu dambeeyay cudurka coronavirusku si aad ugu soo badanayay taasoo dawladdu ay qaaday talaabooyin dheeraad ah oo ay ku xaqiijinayso in dadka lagu kala celiyo gaar ahaan goobaha la isugu imanayo dadku ay ku kulmaan aroosyada dadka isugu imanaya waxaa lagu soo koobay tiro ahaan ilaa iyo 50 ruux inaanay ka badnaan karin dadka iyagu ka qaybgalaya aaska marka qof ka dhintana ilaa iyo 100 ruux ayaa loo ogolaaday inay isugu yimaadaan mar qura meel dalka Kenya guud ahaanba cudurka coronavirus waxa uu saameyn ku yeesho oo ku dhacay 80,102 waxaana u dhintay dalka Kenya guud ahaanba cudurka coronavirus maalintii uu bilowday ilaa maalinka maanta 1,400 iyo waliba 27 ruux wadanka UK oo kamid ah wadamada reer Yurub ee sida aadka cudurku uu saameynta ugu yeeshay ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay wadaan dadaalo xoog leh oo ah in si ballaaran oo quman dadka dhammaan looga eego cudurka ama ha qabaan ama yaanay qabin guud ahaanba UK arrintaas oo ka hadlay ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu sheegay inay tahay tallaabo la doonayo in lagu kala ogaado cudurku dadka uu ku dhacay in kale isagoo si gaar ah mahadcelin iyo bogaadin ugu jeediyay gobolka Liverpool oo uu sheegay inuu yahay gobolka bilaabay isla markaasina dadka oo dhan ka eegay cudurka inay qabaan iyo in kale taasoo ku dayashad mudnaad buu yiri oo gobollo kalena ay ku daydeen UK oo dhan la doonayo dadka cudurka in laga eego laakiin warar dambe oo soo baxay ayaa waxa ay sheegeen in hay'adda caafimaadka ee UK NHS talaabooyin ay qaaday oo ah dadka cudurka laga eegay qaarkood in iyagoo aan qabin khalad ka dhacay dhinaca laboratoryga ama shaybaarka la yiri cudurka waa aad qabtiin dad boqolaal ah ayaa lagu sheegay arrintaas taasoo caqabad iyo dhibaato ku noqotay dadkuna inta badan ay ka niyad xumaadeen markii iyagoon cudurka qabin loo sheegay inay cudurka qabaan mar labaad markii la eegana loo sheegay cudurka inaanay qabinin
aabe isagu ku dhaqan kenti halka lagu magacaabo ayaa labadiisa carruur oo 14 jir iyo 9 jira iskuulka laga soo saaray oo la yiri guriga taga oo isgooniyaya taas oo ay ka qayb ahaayeen dadka la yiri cudurka ayay qabaan laakiin aan qabinin aabahaasi waxa uu sheegay mar haddii carruurtii guriga lagu soo celiyey in shaqadiisii uu gabay oo aanu tegi karin oo ay tahay lagama maarmaan inuu la socdo xaaladaha jiray waxa uu yiri aabahaasi gabadhaydo 14 jira qolka hurdada ayay 4 maalmood ku jirta iyadoo cuntada loo dhigayay iridda laakiin aanay cunin aaqiritaankii ayay ka soo baxday kadib markii khamiistii laga eegay mar labaad oo la ogaaday haba yaraatee cudurka inaanay qabin oo ay ka fayowdahay marka daba la fiiriyo guud ahaanba dadka cudurkaasi lagu sheegay NHS markii ay baaritaanka samaysay la yiri waad qabtiin qalad ka dhacay awgii waa 1300 oo ruux dhammaantood dib ayaa loogu celiyay taasoo la sheegay in markaas ay dhacday si sax ah in loo ogaado dadka qaba iyo dadka aan qabin dadka niyadooda waxay fiicnaatay markii loo sheegay oo la yiri cudurka waad qabtiin kadib markii la yiri waa la baabi'iyay natiijadaasi oo mar labaad ayaa cudurka laydinka baaraya maadaama khalad uu ka dhacay shay baarka dhexdiisa taas waa midda keenaysa inta badan dadka qaar meel kastoo dunida ka mid ah cudurka mar qura inaan laga eegin ee mar labaad iyo mar saddexaad laga eego si markaas loo ogaado xaaladda dadku sida ay tahay iyo intaba UK markaa daba la fiiriyo guud ahaanba maalintii cudurka uu bilowday ilaa maalinka maanta waxa uga dhintay dad ka badan 57,551 ruux waddanka Australia magaalada Melbourne oo xarun u ah gobolka Victoria ayaa maalmihii ugu dambeeyay la sahlayay xaaladihii degdega ah iyo waliba xanibaadii lagu soo rogay taasoo socotay 4 bilood oo isku xigta marka laga bilaabo bishii July si aad iyo aad ayaa loo adkeeyay guud ahaanba Melbourne iyo hareeraheeda iyo gobolka Victoria iyadoo gobolkaasi uu ah gobolka ugu badsaday marka la fiiriyo xagga cudurka ku dhicidda iyo waliba dhinaca dhimashada reer Melbourne waxay u kala jabeen laba qayb iyagu ka soo horjeeday in guryaha lagu jiro mudaharaadka dhigaya wadooyinka waaweyn iyo qayb guryaha ku xasishay oo ganacsigeena la xiray si loo ogaado xaaladda in markaasi laga hortagi karayo iyadoo haddaba si aad loo sahlayay oo dukaamadii la furayay iyo goobaha kale iyo shaqooyinka intaba ayaa nin ka mid ah dadka xanibaadda ku jiray 4 bilood oo ka mid ah ganacsatada magaalada Melbourne ayaa waxa uu ka hadlay waayo-aragnimadiisa iyo waxyaabihii uu la kulmay intii 4 bilood guryaha lagu jiray muujada labaad markii dadka la xareeyay ninkaas waxaa lagu magacaabaa Matt Lanigan waxaana uu leeyahay meel kafeega laga cabo oo ku taala xarun weyn oo laga tukaamaysto iyadoo kafeegiisa lagu magacaabo Lucky Bunny waxa uu yiri xaaladdu ma aanay qumanayn waxaana uu ahaa xanibaadii ugu ballaaran ugu xoogga badnayd marka la fiiriyo adduunyada oo dhan Matt Lanigan waxa uu shaaca ka qaaday in ay la mid ahayd iyadoo ringaha ama halka lagu feertamo laba qofood ay ku feertameen oo markiiba qof ka mid ah madaxa lagu dhuftay kadibna dhulka la dhigay sida arrimuhu ay ahaayeen iminka waxay u muuqataa buu yiri ganacsiga inuu furfurmayo oo wadada iminka ganacsigeena ku yaala buu yiri labada dhinacba dadku way isdhaafayaan dukaamadiina dib ayaa loo furayaa iyadoo waliba dhaqaale xumo ay dhacday sida uu sheegay marka daba la fiiriyo guud ahaanba gobolka Victoria iyo magaalada Melbourne waxa ka jiray dhaqaale darro iyadoo la sheegay Melbourne ama Victoria lacag aan ka yarayn ilaa iyo 80 bilyan inay noqotay in la yareeyay marka la fiiriyo dhinaca dhaqaalaha 5 sano ee soo socda waxa kale intii arrimahan cudurka coronavirus ay jireen iyo shaqo la'aanta iyo xanibaado ku shaqo waayay ilaa 325,000 oo ruux gobolka Victoria waa gobolka ugu soo ridashada badnaa uguna dhimashada badnaa guud ahaanba reer Australia oo waxaa la sheegay dadka Australia ka dhintay 95% inay ka soo jeedaan gobolka Victoria dadka Australia cudurku uga dhacay guud ahaanna 75% waxay ka soo jeedaan gobolka Victoria guud ahaanba dadka cudurku ku dhacay Australia waxaa lagu sheegay 28,000 oo ruux iyadoo dadka uga dhintana guud ahaanba lagu sheegay 900 oo ruux oo kaliya adduunyada marka la fiiriyo guud ahaanba cudurku saameyn xoog leh ayuu ku yeeshay meelo badanna muujada labaad ayaa aad u socota sida wadamada reer Yurub iyo waliba wadamada reer Latin America taasoo la arkayo xaaladdu inaanay wanaagsanayn oo wadamo ka badan 11 dadka cudurku uu ku dhacay tiradu ay 1 milyan kor u dhaaftay laakiin aad iyo aad ay u kala tiro badan yihiin marka daba la fiiriyo guud ahaanba dunida dadka cudurku uu ku dhacay waxaa lagu sheegaa ilaa iyo iminka 61 milyan iyo 300 kun oo ruux dadka cudurku uu ku dhacay ee ka bogsoodana waxaa lagu sheegaa inay madaxa la gelayaan ilaa iyo 40 milyan oo ruux dadka cudurku u dhintay guud ahaanna waxaa lagu sheegaa 1 milyan iyo 440 kun oo ruux marka daba aynu fiirino fariintan iyada ee maalinlaha ay cudurka coronavirus-ka waxa fududeeya sharikada dhinaca qaadista alaabooyinka xagga UK laga qaadayo lana keenayo xagga Soomaaliya guud ahaanba la geenayo lagana keenayo waa sharikada lagu magacaabo Parcel Hosti oo fadhigeedu yahay UK
xafiiskeeda weynina uu ku yaalo bariga magaalada London 473 High Road Leyton halkaas oo uu diyaar ku yahay ganacsade Axmed Barqadle iyo weliba iyadoo halkaasi laga heli karayo oo kale DHL-ka guud ahaanba adduunyada oo dhan la isaga daabulo alaabooyinka hadda diraysidii haddii lagu keenayo intaba ganacsade Axmed Barqadle waxa kale oo bulshada u haya guud ahaanba telefoonada noocyada kala duwan ee kuwa ugu dambeeyay iyo cunooyinka kala duwan waxaana lagala xiriiri karaa telefoonka eber 7949528777 dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhib iyo dheef waxay la wadaagaan dadweynaha dunida waxaana laga rabaa inay islaaliyaan ay feejignaadaan baryada ay badiyaan nadaafadana ay ku dadaalaan inay dhageystaan awaamirta ka imanaysa maamulayaasha dalalka ay joogaan iyagoo aan iloobi in halku dhigi ahaa walaalle ha ii soo dhawaan yaana ku soo dhawaan yaana isu soo dhawaan aan kala fogaano baryada aan badina nadaafadana aan ku dadaalno maxamed axmed xaaji cagmadhiga iyo bahda telefishinka caalamiga Universal ugu qaabilsan arrimaha ka wacyigelinta bulshada cudurka coronavirus oo idin leh annagoo kariimkeena kaashanayna kaalinteena aan ka qaadano ka hortagga coronavirus ma sha Allah